maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee akhris qoraalka sida ay sheegayso hay'adda qaramada midoobay waxbarashada carruurta dhalinyarada iyo dadka waayeelka ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay safmarka covid-19 Soomaaliya oo lagu qiyaaso in dadkeedu wax aqrin karaan ay yihiin ilaa iyo 43% ayaa waxaa lagu wadaa dadaalo sidii dadka ay wax u qori looguna dhiirigelin lahaa dhaqanka wax qorista iyo aqrinta dadka hawshaasi wada waxa kamid ah naadiga Somali Ben haddaba waxa qadka magaalada London hadda toos ugu jira Cabdiraxmaan Abtidoon oo madaxa qaybta Yurub ah Cabdiraxmaan marka hore soo dhawow qoraalka habkan wax akhriska iyo qoraalka maalintan ku beegan maxaad ugu tala gashay inaad dadka ku dhiirigelisaan aad baad u mahadsantahay walaal naadiga qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee Somali Ben loo yaqaano waxaa la aasaasay 1996 marka wuxuu dhisan yahay dhowr iyo 10 sano wuxuu culayskiisa saaray ama ujeedada ugu weyn ama hawsha ugu weyn uu qabta waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka guurto dhaqanka bulsho oraaheedka loo yaqaan ama oral society-ga oo Soomaalida in badan loogu yeero loona guuro bulsho wax akhrisa waxna qorta marka dadaalkii muddada dheer soo bilowday dabcan mirihiisii qaar ka mid ah hadda waa la arkaa oo buug cadadaas ka badan ayaa maalin walba soo baxda naadi akhrisyo ayaa geyiga Soomaaliyeed oo dhan ka dhisma shariikadaha wax daabaca ayaa bata annagana reer UK haddaan nahay maalinta sabtida ah oo 11 bisha ay tahay ayaa waxaan samaynaynaa hadduu ilaahay ra bandhig buugeed lagu soo bandhigayo buugaag hore loo qoray iyo buugaag cusub oo markaa meesha lagu daahfurayo midaasaan hadda aan wadno qorshaasan wadno waa tahay Abtidoon buugaag iyo qoraal ayaad soo bandhigaysaan laakiin meesha waxaa jirta dhaqankii ugu fiicnaa ee wax akhrinta ah ka sidee dadka ugu wacyigelin kartaan inay dadka wax akhriyaan ay u jeclaystaan inay wax akhriyaan طبعا in bulshada dhaqankeedu uu isbedelo oo isku bedelo nooc kaleeto waad ogtahay oo jiilal way qaadataa generations ay qaadataa marka laakiin marka aad fiiriso sidaan ku sheegayba naadi akhrisiye maadaama ay abuurmeen buugaagta soo baxda buugta soo ma bixi lahayn haddii aysan jirin cid akhrisa marka taas waxay ku tusay habarliito waxaan dhihi karaa anigu tunnelka iftiinka gadaashiisa jira hadda waan aragnaa muddo dheer dhowr iyo 20 sano dhowr iyo 30 sano ay ummadan mugdi ku jirtay mugdiga hadda waxaa rabta muddo in laga sii baxayo waa u sheegnaa qofku waxaan ku niraahdaa buug iibso si aad dhaqan akhris u yeelato buug iibso haddaad iibsan dabcan ba akhrinayso oo nooca akhriska aad jeceshahay adigu iibso ku dadaal waxa inta ka sii daran waa in ubadkeena aan u yeelna dhaqan wax akhris si taas ku dhacdana waa inaan library-yada geeyna waana inaan u iibinaa buugaag ugu dambeyntii Cabdiraxmaan muddooyinkan dambe social media baraha bulshada ayaa aad wax loogu qoraa dadkan waxay u bateen inay wax daawadaan qaarkood xitaa way ka caajisaan qoraalada dhaadheer marka isticmaalka baraha bulshada ma isleedahay saameyn ay ku yeelanayaan wax qoraalka iyo akhriskaba طبعا iyada laftirkeedu waa laga akhriyaa baraha bulshada wanaagna way soo kordhiyeen dhibaatana way soo kordhiyeen wixii dhaadheera oo la akhriyo buugii la akhrin jiray dadku waxay ka jecel yihiin Soomaalida keliyana maaha bulshooyinka adduunka dhan taas ka cabtay laakiin haddana koray u qaaday raydkii akhriska la oran karaa marka annaga saan ku sheegayba ujeedada naadiga qalinleyda iyo hal-abuurka Soomaalida ee ka mid ah goboleedka afka Soomaaliga waa in bulshadan laga raraa dhaqankan ah bulsho oraaheedka oo loo raraa dhaqanka ah bulsho wax qorta waxna akhrista geedi socodku uu socdaa hayaanku uu socdaa waan gaari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa 20 sano kaliya waxaan hadda wadno 20 kale haddii lagu daro meeshaan meel aad uga fiican gaari doonaan rajaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Abtidoon oo naadiga Ben wakiil uga ah Yurub aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan waad mahadsan tahay walaal